xoogaga ciidanka Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay qabsadeen magaalooyinka Salaleqa, Wikro iyo Aksum. magaalada Aksum oo ah magaalo taariikhi ah oo marka xagga Tigreega aad ugu weyn. haatan la sheegaya in xoogaga ciidanka huwanta ay ku hareeraysan yihiin dagaalkii ugu xoogana ayaa haatan la sheegaya inuu magaalada Aksum ka socdo. ciidamada TPLF ayaana la sheegaya haatan in iska caabin wadaan oo markaasi haatan difaac adag ku jiraan. waxaana la sheegay xoogaga huwanta in hubka cirka iyo dhulka ay ka garaacayaan markaasi fadhiisimada ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF. si kasta ha ahaatee waxa haatan ay ku dhawaaqeen TPLF arrin kale oo yaab leh oo mar dhaweyd TV-ga Tigreeg oo ku dhawaaqay ayaa waxa ay tahay waxay haatan sii deynaysaa TPLF ama Tigreeg ciidankoodu 9,000 oo maxaabiis ciidanka Itoobiya Eritrea ay ka qabteen. TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay haatan 9,000 maxaabiista ah ay fasaxayso oo ooda ay ka qaadayaan oo ay marka xorriyadooda u soo celinayaan. haddaba waxa la isweydiinayaa waa maxay sababta haatan ku kaliftay TPLF inay 9,000 oo maxaabiis ciidanka Itoobiya Eritrea ay sheegeen inay ka qabteen ay u sii deynayaan? waa maxay ujeedadoodu? ileen way haysan lahaayeen oo marka gorgorta bay kula geli lahaayeen hal dhow tole moogtay xukuumadda Itoobiya si iyagana maxaabiista laga hayo loo sii daayo ama gorgortan kale la iman lahaayeen. maxaa keenay ciidanka inta leeg ay qabteen inay sii daayaan? marka dhowr qodob baa jira baa la yidhi. qodobka koowaad waxa weeyaan maadaama TPLF laga adkaaday baa la yidhi magaalooyinkii waaweynaa laga saaray dee markaa waxay noqonaysaa meel ay ku sii hayaan baan jirinba. iyagu haatan waxay ku sii yaacayaan marka TPLF oo dabada la gelayaan dee godadkoogii taariikhiga ahaa iyo moogtay meelihii ay weligoodba ilaa 70aadkii ka dagaalamayeen dhulka buuraha ah iyo hogaga ay gelayaan marka maxaabiisna ilaa halkaas ma daba wadi karayaan. saa darteed waxay door bideen baa la yidhi markaa inay dee ama dilaan ama sii daayaan. marka 9,000 oo qof dee dilistoodii oo la ogyahay inay hayeen ma qarin jirin moogtay maxaabiis kastoo ay qabtaan oo ku muuqaalada soo duubi jir. marka iminka hadhow tole waxa cambaareen caalami iyo kiis baa qabanaya ah ciidankii aad qabateen xagee baad geyseen hadday dilaan. saa darteed iska fasaxaan marka oo beesha caalamka tusaan indhahooga inay ciidankii sii daayeen ay uga jeedaan baa la yidhi. qodobka labaad waxa weeye si nabad ah oo fiican oo habdhaqan labay u sii daynayaan waayo waxay iskaga maydhayaan shalay tolo fadeexad bay soo raacday TPLF ah inay maxaabiis gabdha ku jiraan oo garaacayaan oo feerka iyo moogtay budkay la dhacayaan marka aad keebso dhiig kaga yaacinayaan oo torture weeyaan moogtay. taasi bay kala kulmeen fadeexad baa la yidhi. saa darteed inay beesha caalamka tusaan maxaabiistan inaan cidda dilinay sii daayeen qoraysay ka qaadayaan marka waxay leeyihiin si fiican baan looga dhaqmay iyo maxaabiistu leeyihiin moogtay. kale maxbuus waa maxbuus oo moogtay wixii dhalay lama qoranayaa laakiinse waa waji wanaagsan bay qaarna leeyihiin. saa darteed bay u sii daayeen ciidankan. dhinaca kale waxaa la sheegayaa sababta ugu weyn ay u sii daynayaan ciidankan inay tahay sida oo kale waxay tusayaan beesha caalamka la yidhi in iyagu maxaabiistii ay qabteen ay sii daayeen laakiinse xukuumadda Itoobiya iyo xoogaga huwanta ciidanka Eritrea waxaa lagu eedeynayaa hadda oo jirta kiis weyn oo haatan moogtay soo baxayo ilaa maalmahan la isla dhexmarayo ah iyagu ciidamo ay ka qabteen TPLF may soo bandhigin muuqaaladooda sawiraantooda iyo fiidiyowga midna kamay soo duubin. waxaana lagu eedeynayaa inay birta ka aslaan maxbuuskii qabtaanba. marka waxa weeyaan inay tusaan marka TPLF caalamka ay doonayaan baa la yidhi in iyagu maxaabiista heerkii caalamiga ah standardka caalamka kula dhaqmeen iskala sii daayeen. laakiinse dhinaca kale ay moogtay xukuumadda Itoobiya aanay ogoleen maxbuus ay soo bandhigtaba ama inay sii daysay inay qabatay midna ma muujinayaan baa la yidhi. taasina way uga socdaan baa la leeyahay. mid kaloo hadda ayaa ay jirto waxay tahay maxaabiistan ay hadda fasaxayaan laftarkooga ayay u adeegsanayaan dib si ay ula dagaalamaan baa la yidhi marka xukuumadii ay ka socdeen ee moogtahay Itoobiya Eritrea waayo maxaabiistan moogtahay gorgortan kamid sii gelin xukuumadda soo daayay iyo moogtahay gorgortan ma gelin marka waxay TPLF u muujisay in iyadu u naxariisanayso iska sii deynayso. marka iyaga laftarkooga inay adeegsadaan baabay doonayaan baa la leeyahay. si kasta ha ahaatee dagaalkan haatan caalamkii oo dhan ka yaabiyey aadka loo hadal haya ee u dhexeeya ciidanka Itoobiya iyo markaasi xukuumadda Eritrea ciidankooda la socdo la sheegay iyo TPLF ayaa waxaa la sheegay inuu sii xoogeysanayo wada hadaladuna kuwa socda. bal wixii ka soo kordhayna barnaamijyada dambe barnaamijka intaas ku dhan yahay. nabadgelyo.